السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalyaal meel kastoo ka kala joogtaan adduunka dacaladiisa waqtigu haydin wacnaado sidii caadadayno ahayna muuqaal cusub ayaan idinla wadaagaya muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay beentii oo sii socota iyo malaawaalkii iyo jahwareerintii shacabka reer Djibouti laga mashquulinayay danaheeda inay u midoodo si wada jir ah inay gacmaha isku qabsadaan oo ay iska qaadaan daalimiintan doofaarada ah سيتا أودعين أيا جهورين لوضع شلا واحد أوجدين إن دل الرافعي أورما الرافعي والري وحال الرافعي والري دتك سوقليتي على الرافعي بلا شرع الدرجة كجوجا أي رهدين كوي شلي مركي رافك للسنة لابد يكون سدحدي لابد يكون شانتي إلى إمي كواتر اللي ضد الرافعي مركز تو دتك الرافو محل صنغدان يجي أو طبعا جير لابن oo fara badan oo kuwii ka sii badan oo ka daran ayaa wadanka soo gala imika waxa loo sameeyayna waa sidii aan ogeyn waa caadadii way qowda maqashii waxbana ha u qaban midda horeysa waxa weey lacagtii laga helayay bank mondialka bankiga adduunka iyo beesha caalamka ayaa go'day lacagtii waa la rabaa si dadka ay u joogaan waa in lacagtan si sambali lacagtii la gooyay in la soo celiyo la doonayaa kal hore 2016 bankiga adduunku wuxuu bixiyay 20 milyan oo dollarka Mareykanka ah iyo mar kale oo bixiyay 10 milyan 30 milyan oo dollar la bixiyay si dadka soo galeetiga ee wadanka soo galaya ee sharci loo sameeyo iskuul loo qoro shaqooyin loo siiyo iyadoona la dayacayn dadka deegaanka iyagana wax loo qabto ee mataqaana horumar la gaarsiiyo dalka tii lama sameyn lacagti waa la cunay meesha martay ilaahayna ma mariyo haddaba dadkan u bartay magaca qaranka jamhuuriyadda Djibouti iyo shacabka Djibouti dartood lagu siinayo mucaawanadii gargaarka in ay wixii laga gooyay loo soo celiyo doonayaan waa dantooda waxay u maqan yihiin ee u qalqeelayaan buuqa u wadaan annaka danteena ma taas waa mid ta kale waxa weey walaalayaal waad xasuusatiin 2000 iyo maxaan ku raahdaa doorashadii dhacaysa baarlamaanka waa tii maxaan ku raahdaa oramadii la isticmaalay ee diris loo xiray mataqaana shaararkii RBB sawirka halka hore idin saaran shalay taabaheed wixii la sameeyay waa markii u dambeysay la sameeyo doorashada baarlamaanka kii xasuusanaya in kulliba dadkeenu way ilooshi dhow yihiin halkan hoosana waa kuwa imika ay raafayaan way kuwii sidii mataqaana daacad ahayd isdiiwaan galiyay ee ka baxay dalka waa sawirkoogii way waka dawladdu ay qowdana maqashinayso oramada bay ku sii diraysaa reer Djibouti haddana waad ogeydeen shalayo oramadii dadkii xaga baxay reer Djibouti ha darraba markay tageen waa kii guryaha lagu dhex gubay waad ogtihiin wixii qabsaday reer Djibouti tanna mid lamida dhici doonta haddana walaalayaal waa in horta maskaxdeena waa inay korto waa inuu ka karno beentan iyo malaawaalkan uu taliskan soo tuurayo taliskan wuxuu noqday meesha quraan ku helano xogta ilashaan ka helano ayuu noo noqday isaga noo yeerinaya halganka isaga noo yeerinaya waxyaalaha rabna inaan ka sheekeysano anako og inuu noo daran yahay hadduu naga naxayo muxuu wadada u dhisi waay muxuu waadiniinta reer Djibouti nolol fiican ugu sameyn waay maxay reer Djibouti gaar ahaan shacabka deegaanka ah ee dalka degani ay gaajada la nool yihiin maxay la dhibaatoonayaan maxay la wada cawliyihiin iyo kuwa ku dhashayba waa la mid dhammaantood dadkaas soo dhan maxaa gun looga dhigay maxaa looga xaraantimeeyay hantidoodii ummad kalena waa lagu casumayay adduunka lagu taageerayo kulka walaalayaal in la jahwareerin waa inaanu ka karno maskax daalis baa la wadaa waa inaanu ka karno intaasaan rabay inaan ogeysiiyo oo idin xasuusiyo kulli waan ogahay inaad iloosho dhowdihiin qabyaaladii iyo qurun baa laydin tuurayaa waad u wardaysiin meeshii farta leedku fiqo ayaad u cararaysiin aqli isku weydiinaysaa ma jirto damiirkiina iyo waxa lagu ciyaarayaa dareenkiina waa la ogyahay inaad tihiin dad cadho dhow waa la ogyahay dad inay curtoodii caadifadu ay degdegto inaad tihiin waa la isku ogyahay kolka waa taa waxa keentay dadkii shalay la masaafuriya la soo celinayaa dadkii shalay la xidhay baa la soo sideenayaa kii la doonaa la haysanaya maxaa kuwiina loo haystaa markasta gaar ahaan dadka deegaanka maxaa kuwiina loo xiraa oo loo haystaa ee xabsiyada uga soo bixi laayihiin iyaguna qowlisatadan u midowday inay nalayso maxay markaste iyagu
isku taageersan yihiin annagana inuu diyaarad taageerno waxaan dadka ogeysiinaynaa in qaraarkii ka soo baxay xukuumadda ee khuseeyey dadka ajaanibka ah ee dalka ku joogo bilaa sharci darrada ah ay xukuumaddu siisay bil gudahood inay kaga baxaan dalka sidaasoo bisha ay u siisay si ay dadkaasi isku diyaariyaan waxooga u urursadaan dalkana ay uga baxaan wakhtigii loo qabtay dadkaasi waxay ku buuxday bishan 3deedii qaraarkaas soo baxay waxa uu sheegayey dadkaasi wixii bixi waayo inay ciidamadu howlgallo bilaabi doonaan bishii 3deedii wixii ka dambeeyey ciidamadu howlgalladoodii bay bilaabeen dadka horta badidiisu dad badan way baxeen kuwaa baxay waxaan leenahay way mahadsan yihiin kuwiise qaraaradii u hoggaansami waayey ee dalka iska sii joogay ciidamadu howlgallo iyay bilaabeen howlgalladaas ilaa bisha 3deedii way socdaan saaka oo ugu dambayso ciidamadu waxay ka hirgeliyeen howlgallo ballaadhan iyay ka sameeyeen qaybo ka mida caasimadda ciidamada booliiska iyo ciidamada gaardakoodka ciidamada xeebaha oo iskaashanayo iyo saaka waa berigii howlgallo ballaadhan ka sameeyey qaybo ka mida caasimadda howlgalladaasi waxaa lagu soo qaqabtay dad fara badan oo dib jir ah howlgalladan ciidamadu iminka ay bilaabeen waxay horta khusaysaa wax alla wixii dad dib jir ahaa ee dibadda jiifay ee dadka dhibaatada ku hayey ee amnigana khalkhalka gelinayay dabadeeto dowladdu qorshay dhigtay kolka ay kuwa dib jirka ay ka baxdo qorshe kale ayaa dowladda u yaallo oo la geli doono kolkaa waxaan leeahay dadkaa weli aan ka bixin ee amaradii fulin waayey howlgalladaasi wax joogsanayo ma aha howlgalladaa way sii socon doonaan ciidamada amar cad baa la siiyey in ilaa qofka ugu dambeeyo ee dalka sharci darro ku jooga laga saarayo howlgalladaasi ma joogsan doonaan haddeedna xeer baa lagu soo geli doonaa waxaa jiri doono kontaroolaa jiri doono howlgalladaasi way sii socon doonaan wax joogsanayo ma aha intii baxday way mahadsan yihiin inta kalena waxaan leeahay war wixii bixi karaya oo iska sii baxa kii kalena ciidamadu diyaar bay u yihiin way bilaabeen sawiradaad arki doontiin waa howlgalladii ballaadhnaa saaka ee ka dhacay qayb ka mida magaalada qaybaha oo horey loo daraasay oo la ogaaday dadka galo waxa ay yihiin inay dad taraafikaa ka shaqaysto mukhaadaraadka dad kriminaera ay ku jiraan howlahayna saaka si fiican bay u dhaceen si nidaamay u dhaceen dad wixii laqa qabtay waxaa la geeyey nagaadh halkaasoo loogu diyaariyey cuntadoodii biyahoogii iyo dhakhtaradii booliiskan halka ay diyaar ku yihiin oo wixii buko si ay u daweeyaan ay ula tacaalaan inta dadka la kala xulayo ee la kala saarayo baaburadii gurayana waa diyaar nin walba dalkuu ka soo jeeday ayaa si nabadgelya looga celin doonaa wasiirka arrimaha gudaha ciidamada amar cad buu siiyey wuxuu yidhi dadkaa la qaqabanayo si sharciga waafaqsan in loo qaqabto iyago oon la dhibin oo dhibaato loo geysan in la qaqabto oo dalkoogii hooyo lagu celiyo laakiin dadkaa waxaan u sheegayaa iyagoo markii hore ku soo galay waddanka sharci darro oo sharci darro ku joogay ay dowladdu wakhti siisay wakhtigii ay siisay ka faa'iidaysan waayey weliba haddana dalkii sii joogo waxaan leeyahay ciidamadaasi marka ay niqabtaan u hoggaansama haddii ciidamada aad wax dhibaato ah amba baxsi sharcigaa laynagala tiigsan oo sharciga dalka u yaallo yaa laynala tiigsan